barnaamijkeena maanta uu ka duwanaan doonaa barnaamijyadeennii hore waxaynu kaga hadli doonaa hadaladii xikmadda iyo kaftanka ahaa ee laga soo minguuriyey hadduu yidhi iyo addoon odhanba madaxweynihii hore dalka Zimbabwe geeriyooday Mr. Robert Mugabe. Wuxuu ku bilaabayaa oo ka mid ahaa hadaladii laga soo minguuriyey. Waxaa la hadlayaa dumarka iyagoo la qabo sawirada qurxoon soo dhigaya Facebooka. My sister oo ula jeedo walaashayay weligaa maaragtay alaab la iibsaday oo la xayisiinaya. Haddii dawladuhu make-upka ay mamnuuci lahaayeen carruur badan ma aysan aqoonsadeen hooyadood. Haddii aad rabtid inaad ogaatid dhibaatada ay leedahay halka xaas moobilkaaga dhammaan heesaha ku jira iska tirtir marka laga reebo hal heestaas mar walba dhageyso ma u heli lahayd wax xiis ah dhageysiga heestaas. Guurku waa wax ragga u macaan. Guriga ayaad soo gashay, cuntadii baad sugtay, waa lagu keenay, waad cuntay, kadib qoftii cuntada ku keentay ayaad cuntay markii dambe. Afrika haddaad aragto nin iyo xaaskiisa guriga banaankiisa fiidkii ku leyrsanaya hamoodi romantic jacayl waa laba midun. Korontada ayaa ka maqan guriga, alaabta guriga ayay isaga buufinayaan sun. Wuxuu yidhi mar kale Mr. Robert Mugabe, gabadh aad jeclaatay baad Facebooka ka arkaysaa umana sheegan kartid jacaylkaaga, laakiin markay sawir qurxoon ama shidan soo dhigto baad u qoraysaa oo aad odhanaysaa wow my bro ambulance miyaate. Ha guursan haweeney ama naag carmal ah oo ilmo wadata, waayo lama arag ciyaar hal gool iyo eber ku bilaabmata. Haddii uu daayeerku lacag haysan lahaa dumarka oo dhammi duurka keynta ay ku noolaan lahayn. Haddii ay gabadh dal kale kugu tiraado idhunko ishumi si fiican u dhunko maxaa yeelay waxaad matalaysaa dalkaagii oo dhan. Dumarku waxay leeyihiin raggu shaqo iyo ficil walba uu qaban karo waanu qaban karnaa. My sister kaadideedan magacaaga ku qori karaa ee adigu ma ku qori kartaa? Ka waran haddaad aroos kasta ka qayb gasho welina aad tahay single, waxba kama duwanid hoolka aroosku ka dhacayo ama taandhada la soo kiraysto. Naagtu markay uurka leedahay qof walba waa uu imanaya, caloosha ayuuna ka taabanaya isagoo leh hambaliyo. Balse ma jiro qof ninka intuu u yimaado ku odhanaya xubintaad waxay qabatay shaqo wacan ee hambaliyo. Gabdhaha dhashay 1990 welina aan la guursan waxaan xasuusinayaa 2020 inay 3 jir noqonayaan. Marka iska sii wata su'aalihiina nacasnimada ah sida halkee ka soo heshay nambarkayga, yaa ku siiyay nambarkayga. Haddii dhakhtar iyo kalkaalis isguursadaan miyaanay bukaan iska dhalayn? Haddaad guursato gabadh dhowr iyo 30 jir waxaad ka dhigan tahay adigoo joornaalkii aroortii saaka soo baxay fiidkii iibsanay. Afrika digniinta kaliya laga cabsadaa waa baytari low. hadday ka hor timaado gabadh uur leh ha ku qoslin ee adigu istijaabi marka hore inaad dhalayso. My sister oo ula jeedo walaashayay inaad nin hanti leh shukaansato kama dhigna inaad hantiila tahay. xidhiidhkiina oo dhammaada ayaa xaaladda ka dhigi kara sidii telefoon restart loo diray. haddii naagtaadu idinka oo hawsha ku jira ama ciyaarta furaashka ku jira ay kugu tiraahdo I love you waxay ka dhigantahay adiga kuma jeclay waa alaabta. ma xaqiijin karno in dhammaan hadallada uu isagu yiri haddaanay ahayn sheekooyin samaysa oo burca tiri oo kale ah.